الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لحاد هي كتاب كان حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله فايدooyinkii laga soo ururiyey kutubta sheekha waxaa ka mid a wax lagu magacaabo طacaamu lqalbi almacnawi qalbiga cuntadiisu waa maxay qalbigu cuntuu u baahan yahay marka waxaa ka mid a alcilmu waa طacaamu lqalbi wuri sheekhu alcilmu طacaamu lqalbi wa sharaabuhu wa dawaa'uhu wa xayaatuhu mawquufatun calaa dalik فإذا فقد القلب العلم فهو ميت علمه وقلبك cuntadiisa cilmigu waa qalbiga cabitaankiisa cilmigu waa qalbiga dawadiisa nolosha qalbiguna waxay ku taagan tahay cilmigay ku taagan tahay qalbigaagu inuu nool yahay iyo inuusan noolayn waxa u dhexeeya waa cilmiga inaad barato inaad aqrido inaad dhegaysato inaad ku dhaqanto haddii uu qalbigu cilmi waayo fa huwa mayit waa mid dhintay qalbigaasi wuu dhintay marka sheekhu macluumada wuxuu sheegay kitaabkii miftaaxu daari sacaada ayib annufuus nafta ayuu haddana mar kale sheekhu wuxuu ka hadlayaa nafta sarraysa iyo nafta hooseysa dadka qof walba naf waa leeyahay laakiin dadka isku mid ma ahoo النفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها بالشيخ نفط شرفت له رالي كن نقول ميس أمورتا وحي سرية وحي فضل له في عن برالي كن نقول وحي عربتي سلما هذه أي رالي كن نقول لكن النفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات نفط اللي ذاته waxay iyadu ku dul wareegtaa waxyaabaha xunxun ee hooseeyay ku dul wareegtaa waxayna ku dhacdaa horey aan u sheegnay macluumadaas sida daqsigu uu qashinka ugu dhaco ayay meelaha qashinka iyadu ku daadanaysaa waxaa laga hadlay waa wax haddii la misaaliye aad fahmi karayso dadku waa laba qaybood labada ruux ee walaalaha ah labada ruux ee saaxiibaha ah ayaa kala duwanoo midi waa kanad aragtay oo masaajidkiibuu ku xidhan yahay diintiibuu ku xidhan yahay wax wanaagsan buu ka shaqayn dharkii iyo wixii ilaahay u dira oo dhan buu qabaa oo labiskii diintii alle midna meeshuu kani masaajidkii kaga xidhan yahay xumaantiibuu ku xidhan yahay fadhi kudirarkiibuu fadhiyaa sigaarkii iyo qaadkiibuu burburin ummadii ilaahay baan ka dhibaato wataa qaar yacni dadku sidaasay u kala tegay markii hadda miidiyaha aan usoo laabto oo waxyaabaha ugu badan ah waxyaabahan adduunka maanta miidiyaha facebookii fulaankii qofkii laba wey qofkii wuxuu ka akhrisan wixii fiicnaa iyo wanaagii cashiradii buu ka dhagaysan mid kale waxaa laga yaabaa wax qaaqaawan iyo qashin iyo inuu maaragtay tiktok iyo belo uu ku dhex jiro marka labadaa guruub bay dadku mar walba u kala soconayaan naftuna labadaasay leedahay naf sharaf leh iyo naf ee hooseysa kitaabkii alfawaa'id ayuu sheekhu macluumadana ku sheegay waxaa ka mid a macluumaadka sheekhu uu xusay wuxuu yidhi faman acrada can illaahi bilkuliyati acrada allahu canhu bilkuliya waman acrada allahu canhu lazimahu shaqaa walbu's ciyaadan billaah qofka rabbi ka jeedsada allana waa ka jeedsan guud ahaanba qofkii alla ka jeedsada allana waa ka jeedsan raxmadiisu alla kala jeedsan naxariistiisu alla kala jeedsan waafajintiisa khayrku alla kala jeedsan wuxuu suuragelinbu alla kala jeedsan qofkii alla uu ka jeedsadana waxaa laasimaya ashaqaa walbu's ayaan daro iyo xumaan baa ku dhici qofka wuxuu ku sheegay sheekhu macluumada kitaabkii la odhan jiray dariiqu lhijratayni wa baabu sacaadatayn kutubta waxaan u sheegayaa waxaan rabaa in kutubta magacooda markaad barato dad badan baa raadinaya oo maanta wixii internetka ku wada jiraan google haddaa u dirto wuu kuusoo wada saaraya pdf iyagoo aad helaysaa marka si sahlan baad kutubtan ku wada aqrin kartaa qofka himada sare leh marka kutubta inaad barato oo lagu sheego waa wax fiican insha allahu tacaala sidaasaan kutubta u wada magacaabayna ayib midda labaad qofkii raba inuu macluumada aan sheegayno ka raadiyo kitaabka isagana wuu ka raadin karaa
ayb waxaa ka mid a macluumaadka uu sheekhu xusay, wuxuu ihi kayfa yakuunu caaqilan man baaca aljannata bima fiiha bishahwati saaca. bal u fiirso, sidee baa loo odhan karaa waa qof caaqil oo wax garan, qofka dhaafsaday jannadii iyo wixii ku jira ee wanaagga ahaa ee tirada badnaa, shahwati saaca, hal saacad shahwadiisii dhaafsaday oo ku gatay. saacadba mee ka yar daqiiqooyin yar ku iibsay. bimacnaa waa waxaan zinadii oo kale haddaan ka soo qaadno, ilaan caro ilaahay iyo waxyaabo badan baa ku dhacaya qofkii, oo zinadii waa faaxisho, waa dembi weyn oo kabiiro ah, waa dembi keenaya in aad toobadkeen haddii aadan la imanin mashiicada rabbi aada ugu sugantay in laguu cadaabo keenaya. marka ilaahina wuu ku dhaafi karaa. marka almuhim, sideebuu caaqil, marka caaqil ma aha wey qof jannadii ilaahay iyo wixii khayrkii oo dhan ku bedeshay daqiiqooyin shahwad iyo raaxo yaro uu helayo. qofka caaqil lama odhan karo. ilaahay subxaanahu watacaala hayna xifdiyo, allana hayna ilaaliyo rabbi subxaanahu watacaala. jazakum allahu khayr, baaraka allah fiik.